soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabnaa inaan kala baxno waa markii labaad oo lacag aan kala bixino aabka loogu magacaabo Hive.me aniga idinka hubo daraad lacagta aan kala baxay waa idin tusoo cadeymihii proofka ahaa soo maanta waxaan rabaa lacagta inaan kala baxo insha Allah soo lacagta waxay ii gaartay $5 mara 10,000 haddii aad bonus aad samaysid soo waxaa ku helaysaa $5 waa soo jeedaan haddii aad 100,000 aad samayso waa $100 oo la bixi doontaa 100 200 300 waa kala bixi kartaa yani adiga ay kugu xiran tahay oo kaliya fahanti marka aniga waxaan rabaa lacagta inaan kala baxo waan rabaa insha Allah balse waxaan ku sharxi doonaa sida lacagta looga sameeyo insha Allah aniga laba maalin kaliya igu qaadatay laba maalin kaliya lacagta ku sameeyay waad kula baxaa darad arkaysiin sharati koysi lacagna kala baxay isla hadan lacag kala kala bixi doona insha Allah sababkan loo qaabo shaqeeya qaabna waa levelka sida gaarsiisa ku raxal ugu siin doonaa 5 senti ugu siin doonaa sidaas ayaa $10 ilaa $10 ku gaarsiinay waa la bixi qaybta kale waxa way qaybta kale asxaabtaada oo kaliya asxaabtaada ay ku xiran tahay asxaabtaada inta yani linkiga soo raacdo ayaad lacag ku helaysaa linkiis hoos ku dhigi doona abka linkiis saxda ee lacagta laga sameeyo lacagta lagu baxo insha Allah kulli uu ku wadaagi doonaa okay inta booqanay marka inta booqato soo ka soo bixi doona insha Allah meesha lacag laga sameeyo marka miimad waa meesha fahanti isbinka say dhili soo jeeda waa ka qaybta soo xaway inta soo lagu sii soo la bixi kartaa marka anaga muhiimadeena inta kaliya maaha muhiimadeena waxa tahay lacag la bixid inaan lacag kala baxno application sidaad arkayseen baa lacag kala soo baxay insha Allah kaliya muuqaalka dhameyso waxaan sharxitaan oo kaliya halaan arkaysid meeshaan lacag ayaa laga sameeyaa halaan arkaysid lacag ayaa laga sameeyaa meel kasto arkaysid ilaahay ku dhashay lacag laga sameeyaa soo lacagaha ugu yar oo kala bixi kartid waa waxa weeye $5 u yar soo jidaan lacag waa kala bixi kartaa okay laakiin ma meesha caadiga oo hadda levelka la kordhiyo lacagta laga baxo soo wax u yar badana 30 10 u yar soo $10 yani meelahaas yani la bixi kartaa okay hadda waxaan rabaa inaan la baxo $5 insha Allah $1 waxay u dhigantaa 2,000 oo yani koon waa ayay u dhigantaa laakiin haddii ay 10,000 soo waxay u dhigantaa $5 waa aniga waxaan gaarsiiyay 10,000 soo jidaan haddii aad 10 gaarsiisid waa la bixi kartaa haddii aad 50 gaarsiisid waa la bixi kartaa haddii aad 200 aad gaarsiisid waa la bixi kartaa haddii aad maxaa la 500 aad gaarsiisidna waa la bixi kartaa waxay ku xiran tahay adiga iyo heerka isgaarsiisa ku xiran tahay inta uu kaliya sameey marka hadda waxaan rabaa inaan la baxo soo $5 inaad doorta u baana sababtoo ah waxaan marayaa 10,000 aan maraa 10,000 ayaa maraa Soomaa sidarteed waa inaan doortaa 10,000 soo marka inta meesha gaarin yani saquud socdeen proof ah daraad lacagtii aan la baxay waatana daraad lacagtii aan kala baxay waa kana 6 full la soo qoray soo jeeda maantana lacag kala bixi doona insha Allah wadooyin badan aan mari doona insha Allah sharci waxa jira application u gaara uu diidayo marka lacagtaas u khasaarin waxa aan ku sheego kay samee muuqaalkan daabo lacagtaada hadii kale waa ka khasaaray okay hadda waxaan dooran doonaa qaybta $5 sababtoo ah 10,000 oo koonaan ugu jirto sababtoo 10,000 waxa u dhigantaa $5 u dhigantaa soo kala bixi doonaa insha Allah okay yani muuqaalka waxa way dhameyso min bilow ilaa dhamaad dhameyso hadii lacagtaada 200 ku dhanto waa la bixi kartaa 500 step aan ku sheegay bas dheeraac step kala raacin hadii kale lacagtaada sidaas ayaa ku waanay marka lacagta ayaa weys hadda waxaa taabtay qaybta withdrawalka soo galay maxaa loo baahan yahay adres ah USDC loo baahan yahay oo qaybta waxa ka dooran network uu yahay Ethereum aad dooranay oo soo jeeda waa Ethereum aad dooran doona soo waxaan soo qaadan doonaa adres mid kamid ah soo ka qaran doona insha Allah paste meesha ku dhigi doona adreska soo qabayna inta bas ku dhigi doona okay muhiimadu waxa weeye meesha adresna ingiriisi laga baahay adreska saxda ah ee USDC loo baahan yahay soo Ethereum ka sii doorey soo paste soo dhigi doona insha Allah soo waa soo geliyay soo jeedaan meesha waxa copy paste ku dhigi doona kaliya paste ku kaliya ku dhigi doona soo adreska meesha waaye paste ku dhigi doona okay ku dus insha Allah soo hadda bas hadda meeshan geeyo ka soo laaban doona ka soo bixi doona insha Allah meeshan geeyo soo ana meel taabtay gacantii ka dhacday sorry marka waxa way meeshan bas ku dhigi doona inaan ku sii daahno marabno ha meeshan gelin doona bas ku dhigi doona soo bas ayaan ku dhigi soo jidaan kadib confirm aan dhigi doona kadib la bixi dhigi doona soo waxa dhigi doona kadibna confirm ka dhaho nooc soo jidaan hadda wixii soo qoray akoonkan hore ugu la baxday yani akoon hore ku soo xirtay oo la baxday uu jeeda soo mar labaad ku celin doona insha Allah saquud insha Allah wuu diiday sababtoo akoon hadii aad hore akoon u samaysto akoonka adres kula baxday adres kale kula bixi kartid yani akoon kale kula bixi kartid wuxuu baahan yahay adres cusub u baahan yahay marka saaxiibayaal isku ilaaliya marka hadda adreska ku fiirin doona isla adreska ku fiirin doona insha Allah waa gari doona wuu diidi doona insha Allah daawo marka wax walba ina cadeen kugu tusaaraba lacagtaada inay ka khasaarto mar wada ku sheega hal adres gooni ah ku xiro meesha hal adres kula bax haddii aad akoon kala furto oo isla adreska aad rabtid kula baxday no macquul ma shirkadda ma yeelayso
shirkadda waa yaqaanaan faati way gelin doonaa insha Allah meesha ku qori doonaa USDC soo waa kana waxaa dooran doonaa Ethereum aa dooran doonaa Ethereum dooro soo koobi soo dhe koobkaas oo dhan meesha tagi doonaa insha Allah so adres waxaa jiro hore ugula baxay kii daraad arkaysa $4 waa akoonka qofka leeyahay waa adres qofka leeyahay saa yani sa u browe so hadda wuu diidi doonaa soo jeedaan ka saad confirm daro wuu soo diidi doonaa wuxuu leeyahay akoonkan maya hore ula baxday akoonka hore lagu xiro waa already hore ugu xiran waa soo jeedaan waxaan gelin doonaa adreska waxaan soo qaban doonaa qofkii aan daraad adreskiisa kula bixinay haddii aan soo gelino isla markii hore ka bixi doonaa soo gelin doonaa insha Allah adreski qof kale soo gelin doonaa waan ka tirtiri doonaa kan insha Allah soo adreska qof kale waa inaan soo gelin waa in muhiim ah adres qof kale adreska dad soo gelisid markaa yeelaa adreska soo geli no u kulay waa diidi doonaa adreska dad soo gelisid no u kulay doonaa sababtoo ah wuxuu u baahan yahay adreski hore u gelis hal akoon hal adreska ku xirtid adreska waxaana adreska bas yani ku xirmaayo mid kale oo ogolaana ma leh lacagna kula baxday okay waan tiri doonaa insha Allah waxaan gelin doonaa adreski aan daraad yani wiilkii qofka daraad ula bixin adreskiisa soo adreskaasaan gelin doonaa lacagta inay bixi doonto insha Allah waa arki doontaan soo markii lacagta soo baxdana screenshot iskaga soo qaadan doonaa insha Allah soo haddii waxaan dhihi doonaa confirm adreska soo geliyay saxda soo kadib waxaan dhihi doonaa confirm ka dhaho lacagta saasay ku baxday lacagtii hadde saasay ku baxday oo waxaa la soo qoray submit lacagtii waa dalbatay waxay soo gaaraysaa lacagta waxay maqnaanay muddo adii hal maalin ilaa 2 maalin waxaasay maqnaanay kadib lacagtada way kusoo gaaray waxaa kusoo gaari doontaa u malaynayo $4 iyo $5 maxaa kusoo gaarsiin doonaa faati soo jeeda waa kaas marka lacagtii waa kaas way baxday soo jeeda waa kaas successful la soo qoray hadda wuxuu ku jiraa processing ku jiraa markii meesha lagu soo qoro successful lacagtu soo gaaray diyaar $5 la baxay macnaheedu wuxuu kusoo gaarayso $4 iyo $5 maxaa kusoo gaarayso marka waa kana soo jeeda waa kana meesha waa soo galay hadda maxaa qoran meesha processing ku qoran lacagtii waa la baxday oo processing ay ku jirtaa kusoo gaari doontaa macnaha waa sugi doontaa markii meesha successful lagu soo qoro akoonkaaga adreska fiirsay $4.5 ku soo gashay yes okay lacagta waa sax waa faadi soo jeeda waa ka marka waa ka soo jeedaan hadda lacagta hore kala bixi waa kasa lacagta meel processing ku jirta oo kasa aad u maasantiin saaxiibayaal nagu soo biira channelkan application qaabka lacagta loo sameeyo insha Allah wax walba kula wadaagay ku soo biiri channelka waa channelka aad u maasantiin subscribe inoo dhaha qof walba inoo muhiim application ka sii fiican waa soo gudbin doonaa insha Allah aad u maasantiin nagu soo biira